sanadkii labaad ee carwada buugaagta Muqdisho ilaa 2,000 qof ayaa ka soo qayb galay qorayaasha Soomaaliyeed ilaa 32 dalka gudihiisa mandaqada bariga Afrika iyo caalamka kalaba aan ka martaqaadnay rag iyo dumar dhalinyaro iyo dhaxaad iyo in kalaba leh buugaag ay qoreen Soomaali oo lagu qoray af Soomaali af Carabi af Ingiriisi af Boorna way yeelaan sanadkan insha Allah. Well, it's wonderful to be here in Hamra. As other people know it, Mogadishu is quite an experience to see thousands of young people between 90% of which are under the age of 21. I have not encountered this type of attendance in the West. waxaan halka maanta ku soo bandhigayaa sida u jeedtaan buugan oo ah sooyaalkii taariikh nololeedka Xaaji Maxamed Goobtoon buuga title-kiisu waxa waa agoonkii cabsida ee badugsaday aniga ma ahi qoraaga buuga qoray laakiin buuga waxa qoray Aabbahay Cabdi Xaaji Goobtoon oo horaantii sanadkan ku geeriyooday magaalada Muqdisho waxyaabaha igu dhaliyay inaan buugan soo saaro waxa weeye wuxuu ka hadlayaa ereyga agoonnimada iyo dhibaatada ay leedahay markuu agoomoodo ama hooyada ama aabbaha uu waayo anigu sanadkan waxaan soo saaray buugayga aan magaciisu yahay baroorta orgeyga ka weyn kaasoo aan kaga hadlayo tahriibka runtii waa markii ugu horeysay imaado magaalada Muqdisho waxaanan lama filaan bay igu noqotay oo wax wanaagsan ayaan kala kulmay waxaan kala kulmay dad badan oo bartay iyo xiriir wanaagsan oo ka kala yimaaday gobolada marka runtii aad iyo aad bay faa'iido ugu ahayd واي Soomaaliya Twitter ku isticmaal marka Soomaalidu way warbixin Twitter ka waxa uu qoran koobaya marka sababtii Facebook ku waa sida ayadoo qiisay fadhidaa shaqay marka soo galay waxaan ku yiri baahi bay haysan ay maxaa jeceshahay layma oran layma xisaabin lama dhihin soo qaaday waqtigaagi dib soo dhacday maxaa jeceshahay ku soo yeelay qof ma jira حبيبي سجعليه ومرة قيتهم لكن بعدها سولو مبني قلت لبعض سبب سولو مبني يا دوما هدان هاي سبب كيلو بني حتى عقاتو أي تبادو إن الهور يستعد معها إن الهور يستعد معها أنت waxay ku haystaan oo khayr aan midigta Ilaahay ka saaro آمين تسوي لنا مغلق. آمين.